وهي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرضي سؤال إن شاء الله عشر كل وحن كسو خاضني وحن صوت ديزاين قريني قيبتيني شوكيس كاس لو كلا وحن صوت قشني لوغدان طبعا فوم كان يو تايتل كان بدن كان أريد مركا إنتان طبعا بوت ستراب واحد وحن قد قلنا إن شاء الله عشر كان in aan naqshadeen oo sameyno qaybtan aba service-ka oo sawiradan oo border crown-diga aan soo gashan insha Allah intaan dabcan waa HTML caadi ah oo bootstrap kaliya intaan anaga marka final project-gayga hadda waa kana dabcan saan uu furan yahay si oo maxay oo showcase ahaan balse bidka aan hadda naqshadeenayo waa kana marka waxaan tagaa Visual Studio Code-kayga tagaa marka section-ka u dambeeya Indy of John Patron kana meeshaan ka bilaabo waxaa leeyahay section kan class oo waxaan siinaa oo mine okay image abbreviation wili ma soo qabanin marka waxaan sameynaa si caadi ah u gashanaa وحل section class equal mine okay section كهل okay انت مركو ku calaamadeysana si hadhoodii aan u fahmo waxa leeyahay end of mine section save garena kadib marka inta aan joogo section kamaan markaasaan soo gashtay kadib waxaan soo gashanaa insha Allah container asigana u baahanahay waxaan leeyahay div class equal container okay terminal okay divkan here inta ma calaamadeysana marka waxaan leeyahay end of container glass okay container ku waxay tahay macnaha waxaan rabaa in uu dhaxal isku imaado sidaan hadda u jeedido kale oo aw service dhaxdaan uu jooga inuu saan dhaxal u imaado macnaha saasa container marka waxaan ku laabanaa VS Code-kayga ku laabanaa markaas container u gashto waxaan title-kan sameysana oo ah dabcan h2 okay h2 waxa leeyahay our services okay save sidoo kale waxa sameysana div class-kiisa waxaan ka dhiganaa services okay divkan xir okay inta marka magacaabo si hadhoodii aan u fahmo waxa leeyahay end of services class okay so marka service-ka class services wada gashtay hadana waxaan sameysana service oo macnaha oo individual macnaha marka div kala abuurana div waxaan leeyahay class equal service bisale macnaha okay kan div kan xira oo waxaa leeyahay inta marka waxa ku magacaabaa meeshan waxaan leeyahay end of service class okay inta marka meeshan marka service kadaan fiirino hadaan u laabano final project-geena okay service macnaha sawir iyo xagashan iyo qoraal marka intaas sameeyna insha Allah okay sawirka horta kaasana waxa leeyahay img src equal okay sawirkan hadda image address-kiis ahaan oo soo qaadan waayo hadda qaab waxa ku soo galiyay cdn ahaan ku soo galiyay wadan hadda pixabay.com qaabkaas ku soo galiyay marka waa idin tusaan dhiman insha Allah balse code image address aan lahay inta marka image address kan ku basta gareena waxa waaye cdn ahaan waa macna marka waxa leeyahay alta waxa iska leeyahay computer training okay
xir. Okay, kadibna inta waxaan dhahdaa history waa title-keeda waxaan dhahdaa computer training. So marka waxaan sameynaa service kala u baahanahay. waxaan leeyahay div class equal service aleha. hadhow marka fikradu waxay tahay saddexdoodba class oo service asiina si hadhowdi aan saddexdood u naqshaday macnaha oo aan dad service kali u darto. fikrad intaas leedahay macnaha divkan xir. divkan marka xiro intan tagis xir, divkan kale xir. waxaan dhahdaa marka intan waxaan dhahdaa marka end of service class, end of service class. okay save. okay marka meeshaan markaa joogo sawirka img soo gasho. okay waxaan dhahdaa img src equal soo kala kana image addresskiisa iisoo koodiyey bixigi dabcan wiilow koroga dhib malahan. waxaan sameynaa image final project ahaa copy image addressna meeshaan marka bastigaray altadiisa waxaan dhahdaa training books. maya waxaan rabaa alt attribute oo alt uu leeyahay oo description ka sheega soo maha. waxaan leeyahay training books. okay intan waxaan dhahaa training books. okay intan historyga iska xir. okay midka ugu dambeeya ileen saddex service waaye. div kale saddexaad abuuranaa div class equal service. okay tan xir tan divkan xir. okay labo div xir mid dhiman inta marka comment ka dhigana end of service class aan leeyahay si hadhowdii waxay aan u calaamadeysto. marka meesha marka sawirka saddexaad aan soo dhiganaa oo image-ka ahaa. waxaan leeyahay img src equal. okay sawirka isu koobiyey copy image address leh capacity gray. altan waxaa dhahdaa other things. okay okay intana history magaca dhahdaa other things. okay history xira marka save aan leeyahay. okay haddaan ku laabto projectigayga and refresh aan dhaho waa kana macna saddexdoodaba iisoo galay. marka waxaan rabaa inaa style sheetka inaan u gooyaa rabaa. horta containerkan classkii oo maxay ahayd bootstrapka waaye. marka waxaan u gudbaa insha allah style sheetkayga. style sheetkayga u gudbaa. waxaan leeyahay okay style sheet. okay mine ay wada jiraan. waxaan ka bilaabo dad mine. okay mineka waxaan leeyahay background digiisa waxaan leeyahay hash f4 f4 f4. okay okay markaas asoo kadib waxa igu xigo historygan maxay ahayd historygan oo ciwaanka aan raba inaan dhexda keeno. where is it okay class masiinin doorasho ahaan marka doorana waxaan xasuusinaa class small reading. okay style sheetka u laabo. okay waxaan dhahdaa marka dot small heading waxaan dhahdaa text align equal center. font size kana
I think font saas inuu u baahnay maadaama h2 yahay kaliya waxaa leeyahay font weight aa leeyahay. Font weight waxaa dhahdaa bold. haddaan save dhahda aan ku laabto projectigayga aan ku laabto and refresh dhaho waxaa arkaysaa in maxay ahayd our service-ka uu dhexda imaaday. okay meeshan gaab yar ku jiro marka waxaan sameynaa si oo kan koowaad loo qaato background aan iska dhaafana. okay tan I think in intaas ugu baahan nadaalo waxaa ku dari karaa font size oo waxaan ku dari karaa maxay ahayd 40 pixel oo kale inay aad u weynayso umaleena. kadib waxaa igu xigo dar fresh and sidaan noqonaa. waxaan rabaa marka sawirradaan rabaa in aan maxay ahayd side by side aan isku keeno sida hadda final projectigeena oo kale in aan side by side aan isku keeno rabaa. waxaan dul tagaa marka style sheet-ka dul tagaa. waxaa leeyahay services ay wada jira soomaha. waxaa leeyahay dot services. waxaa leeyahay display-gooda ahaada flex. marka save aan leeyahay isla markaan display flex dhaho haddaa refresh hadda waxaa arkaysaa in uu side by side inuu isdhinacayaa macnaha. marka inta aan karayo intaas waaye. sidoo kale waxaan leeyahay justify content. waxaa leeyahay space around wax kale ma aan ku sameynaa margin-ka oo container-ka lahaay marka dhex baxaya macnaha intaas space between hadii la dhaho waxaa waaye geesaha dhan ku dhig waaye. marka hadda intaas aan dhaho kadib waxaan u imaanaa service-ka single-ka ahay aan u sameeyey. waxaan doorana waxaa leeyahay service markaa dhaho kadib I think service-ka waxaa ku jiraan image-kan ku jiro soomaha saddex inta waxaa leeyahay service img. okay that service img markaa dhaho kadib waxaan leeyahay width-ka horta yareynaa oo waxaan leeyahay I think 200 pixel. kadib waxaan leeyahay border border minus radius 50% ahaada macnaha. konton boqolkiiba dib wuxuu sameynaa sawirka wuxuu ka dhigaa macnaha wareego ka dhigaa oo wax oo ellipse tool dhex gala ama dadaan refresh aan dhaho sa ujeedii sidaan uu noqday. marka wax yar high-gan ku daraa intana space u dhaxaysiina macnaha. marka waxaan leeyahay tingi border minus radius sax. waxaan leeyahay high-gan waxaan siinaa tusaale ahaan oo kale 80 pixel leh. tan save hadda aan u laabto browserka aan refresh aan dhaho. aad u yaraaday inta waxaa dhahdaa marka high-gis waxaan dhahdaa 200 pixel. save aan dhaho haddaan u laabto browserka aan refresh aan dhaho. sidaan oo noqday. marka width-ka wax yar ku daraa oo waxaa leeyahay 230 kale. hadda waxaa iga dheeraada camal u egyaa macnaha si ay wax u noqdaan. marka waxaa ii dhiman in maxay ahayd aan dhexda iskugu keeno textiga. horta waxaan dooranaa h3-gaan aan dooranaa tan kale usoo laabanaa. inta marka waxaan leeyahay dot service h3 text align waxaa leeyahay center ha ahaado. intaas daan save dhaho aan u laabto aan refresh aan dhaho. waa kana dhexda iskugu imaadeen macnaha computer training dhexda iskugu imaadeen. marka waxay dhiman inaa meeshan space u dhaxaysiyo. marka our service iyo sawiradan waxaan ku laabanaa VS Code small heading markaas ahaa umaleynaa
كان سيرفيس marka waxaan leeyahay services kan aan ka bilaabaa okay waxaan leeyahay margin minus top عليه 30 بكسل ama waxaad ahdaa 50 بكسل save dheh haddaan u laabto browserka haddaan u laabto aan fresh aan dhaho kaysa ujeeda hadda space oo gashtay macnaha sidoo kale computer training iyo isku dhawiin soo maaha kuwan xogaa waa sidoo kale sikina oo waxaan leeyahay tan oo kale اشتريgan oo kale waxaan leeyahay margin minus top okay 20 pixel oo kale save dan dhaho u laabto and fresh dhaho okay waxyara soo kale sikada macnaha okay waa kana training books ama service waa kana soo gash training books soo marka in 10 ka marka meesha ku keenayna insha Allah oo hadda service ku naqshadeysani wax noo dhiman ma laha waxa gudagaleynaa 10 kala du'aalada ku dhigo asigan waxaan naqshadeysanayna qaybtan u dambeeyso oo footarka ka sareysa iyo iconadana soo gashanayna sidoo kale fartaan oo hoose copyright-ka intaas soo gashanayna insha Allah ila soco 10 kan hadda intaas ku keenayna qaybtan oo maxay ahayd service-ka directed inta linkiyo sawirkan waa ka dhigi kartaa oo maxay ahayd kaliya ee tag bisa kormarsiinay macnaha okay meeshaan hadda oo image ay tahay waxa dhigi kartaa href equal aan hadda link meel oo aadamahay haasha iska leeyahay balse aad markaas soo taa daarta inuu linkigaas meel cusub ku furmo waxa dhigi kartaa target equal okay target equal waxa dhigi kartaa underscore okay blank okay inta ka xeer okay marka tag marka image meesha u dambaysan ka xeer macnaha inta ka xeer save dheh haddaan u laabto browserka haddaan u laabto and fresh and dhaho okay waxaa arkaysaa inuu link yar gashto marka linkin qaabkaas oo gash kartaa insha Allah marka 10 ka meesha ku keenayna dawladda 10 kale ila socda insha Allah